marka laga soo tagay dawladda federaalka ay maamusho degmooyinka gobolka Hiiraan ayaa haddana waxaa jira in degmooyinka Buuloburdo Halgan iyo Jallaqsi ay go'doomiyeen xarakada al-shabaab oo gabi ahaanba xirtay wadooyinka isku xidha degmooyinka gobolka. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Hiiraan Maxamed Ibrahim Cabdullaahi oo waraysi gaar ah siiyay TV-ga bulsho ayaa sheegay inay wadaan qorshe la doonayo in la iskugu furo degmooyinka ay go'doomiyeen xarakada al-shabaab. way jiraan meelo yaryar oo kala xiran laakiin annaga sida loo qorshaysan oo kaladeena waxay tahay in si degdeg ah meelahaas talaabo u qaadno qolada nabadiyo baadiyaha ku maalaysanayso waxaa jira dad iyo deegaanka kamid oo qoladaas nabadiyo ku jirto in dad aan ku jirno meelo kala dekeeyay in badan madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in dadkaas ay cafis loo fidinayo si ay ugu soo laabtaan qoladooyinkaas nabadiidka wali baaqi uu taagan yahay waxaa leenahay sida madaxweynaha ku baaqay u qaataa markaas oo ka soo baxo maado dadkii dalkiina u imaado hadday diidaan dadkaas dadkii kale soo baxo maado dadkii dalkiina u imaado hadday diidaan dadkaas dadkii kale to saagooda ay meel u maray ayaa la marsiin doonaa xaqiiqda qorshe weyn aan nooga degan wadooyinkaasi aan rabno inaan ka qaadan talaabo aad u weyn oo isku fuurayna meelaha kale xiran ay ka mid yihiin Buuloburdo Jallaqsi iyo Beledweyne ilaa Buuloburdo wadada salaamiga dheer oo magaalada xiriir sidoo kale meelo kale oo kala gudsan oo gobolka Hiiraan ka mid ah u badnaadaan baadiyahaasi ay dadka isku maraan way xiriirina ayaga laakiin go'aanka aan wadno yahay in si shaqo media ka sii shaqeeyo maahan laakiin marka waxa ma muddo gaar ah la yiraahdo meelahaasi askarkii ugu weyn meel hebel u tagay inaan gaarsiin haduu marka laga soo tago degmooyinka gobolka Hiiraan ee kala go'doonsan waxaa jira wadooyin dhaxmar magaalada Beledweyne oo meelaha qaarkood jabooyinka ay yaalaan isla markaana wadooyinka qaarkood ay xiriireen dadku ay dhibaatooyin kala qabaan idinka kama waxaan maxay idin qorshaysan howlgallada maal habeenada soo koobtay waxaan rajaynaynaa sida noogu dhaqsiyaha badan leh oo haddana fadhigii ugu dambeeyay aan yeelanay in wadooyinka intooda guulaha aan furno oo amnigoodana aan la socono waan ognahay waxa loo xeeyo waxay sabab amni oo kaliya ma ahan in dawladii iska goosado wadadaas iska go'naanaysa sababahaas amni loo gooyo wadooyinkaasi ayaa xaqiijinteeda ku jirnaa maalmo soo socda haddii ay yiraahdaan xarajaynaa meelo badan oo dadka shacabka reeyga farxi doonaan oo halbowlaha magaalada isku kala socodkeed inay furmi doonaan haddii ay yiraahdaan waan ku tala jirnaa in badan war ka hadalnay maamulka iyo odayaasha dhaqanka eralaas iyo ogaaskana soo kala duwan loo soo jeediyay in wadooyinka halbowlaha la furo waan ku tala jirnaa aad iyo aad u mahadsantihiin sida adinka inkastoo xarakada al-shabaab laga saaray degmooyinka gobolka Hiiraan ayaa haddana inta badan waxay maamushaa deegaanada hoostaga degmooyinka gobolka isla markaana deegaanadaasi ka soo abaabusha weeraro ismidaamin iyo mid tooso ay ku qaado fariisimaha ciidamada dawladda ay ku leeyihiin degmooyinka gobolka iyadoo ugu dambeeyay weerarkii ay ku qaaday xere ciidamada Itoobiya ay ku lahaayeen degmada Halgan ee gobolka Hiiraan iyadoo weerarkaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 250 ruux. Maxamed Cabdi Sanay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne.